madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi isagoo ku hadlaya magaciisa ka dawladda iyo ka shacabka jamhuuriyadda Somaliland waxa uu dhambaal tacsiya u dirayaa golaha baarlamaanka jamhuuriyadda Somaliland gaar ahaan golaha guurtida waxgaradka waayeelka aqoon-yahanka qoyska ehelada qaraabada asxaabta iyo shacabka Somaliland uu ka baxay Allah u naxariistay marxuun xildhibaan Maxamed Aw Axmed Xaaji Aadan oo ku geeriyooday maanta taariikhdu tahay 9 bisha 2022 cisbitaalka guud ee caasimadda jamhuuriyadda Somaliland ee Hargeysa waxaanu madaxweynuhu marxuunka ku sifeeyay oday ka baxay dalka iyo dadka jamhuuriyadda Somaliland door muhiim ah ka soo qaatay nabadeyntii dubdhiskii dalka waxaanu madaxweynuhu marxuunka looga bariyay inuu naxariistii janno ka waraabiyo golaha baarlamaanka jamhuuriyadda Somaliland waxgaradka waayeelka aqoon-yahanka qoyska ehelada qaraabada iyo asxaabta iyo shacabka Somaliland ee uu ka baxayna samriye ima saadiqa ka siiyo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ويحيى موسى إبراهيم يحيى نيروبي ورك تلفزيون كعالمي يا عروق تيفي هرجيز